بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد walaalayaal maanta waxaan isugu nimi saad ogeedeen musaabaqadii imaam shaatibi ee soo gabagabowday maalintii isniinta ahayd tartankeedana ay ku guuleysteen laba qof 30 jis labadii qofna mid ka mid ku guuleystay inuu baabuurkan helo oo Cabdullaahi Bashiir ahaa baa maanta waxaan u joognaa in baabuurkii lagu wareejiyo Cabdullaahi Bashiir saan hore u sheegnayna barnaamijkan Cabdinaasir Suufi iyo gruubkiisa ah oo rag ganacsada ah baa bixiyay baabuurkan oo runtii iyadana cidna kala tashan iyagoo go'aansaday in ay quraanka Ilaahay weyneeyaan subxaanahu wa ta'ala waxay kaloo gruubkiisu ballan qaadeen inay sii wadi doonaan arrintan insha Allah ta'ala sanadka soo socda haddii Ilaahay uu yahay subxaanahu wa ta'ala runtii waxaa aad u mudan inaan wax ka sheegno qofka quraanka Ilaahay inuu weyneeyo waa wax aad u weyn dadka hore waxay oran jireen haddaad rabto inaad ogaato Ilaahay agtiisa qiimaha aad ka leedahay waxaad ogaataa quraanku qiimaha agtaada uu ka leeyahay marka qof kasto quraanka Ilaahay weyneeyo subxaanahu wa ta'ala waxay calaamad u tahay in Ilaahay agtiisa uu qiimo ka leeyahay subxaanahu wa ta'ala marka walaalaha wax bixiyay macallimiinta quraanka oo macallin Cabdinaasir hadda uu nagala joogo macallinka ardayga ah dad badan oo ka qayb qaatay runtii waa khayr fara badan oo quraanka lagu weyneenayo waxaan Ilaahay ka baryaynaa marka in Ilaahay uu ka aqbalo dhamaantood khayrka iyo wanaagaas maxaa yeelay khayr badan baa jira oo haddana aan la aqbalin inna yataqabbalu Allahu min almuttaqiin marka maanta waxaan u joognaa meesha in baabuurkii oo live ama mubaashir lagu wareejiyo walaalkii ku guuleystay tartanka quraanka ahaa marka waxaan rabaa inaan kelmad siiyo macallinkii Cabdinaasir Faarax oo ahaa Cabdullaahi Bashiir macallinkiisa inuu kelmadiisa insha Allah ta'ala alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahadsan isugu kaay keenay meeshaan oo lagu weyneynaya quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii sheekh cabdixakiin sheegay Cabdullaahi Bashiir wuxuu ka galay musaabaqadii imaam shaatibi number 1 waxaa marka maanta la guddoonsiinayaa gaari Highlander 2020 ah Cabdullaahi Bashiir wuxuu ku dhashay Mareykanka ayadoo ku koray quraankana ku bilaabay kuna xifdiyay tartankii ugu horeeyay oo Cabdullaahi ka qayb galo waxa ahayd musaabaqada imaam shaatibi 2015kii wuxuu ku tartamay 5 juz wuxuu ka galay kaalinta saddexaad wuxuu kaloo ku tartamay musaabaqada imaam shaatibi 15 juz dhowr jeerna wuxuu ka qayb galay oo ku tartamay qaybta 30 juz ilaahay maaragtay mahadiis maanta wuxuu galay number 1 inta ka bacdi Cabdullaahi waxyaalaha keenay inuu quraanka ku tartamo ama uu ku guuleysto waxa qayb weyn ka qaatay musaabaqada imaam shaatibi waxa weeye waxa kaloo ka qayb galay tartamo caalamiya sida Sacuudiga Ruushka waxyaalaha encourage gareeyay ama uu aad inuu maaragtay u jeclaado quraanka ilaahay musaabaqadana kamid ah marka sida darteed musaabaqada imaam shaatibi wax weyn bay ku soo kordhisay community-ga iyo ummadda muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ardayda quraanka jeclaadeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka barayaa dadkii aasaasay iyo maamulkeedii ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka inuu ugu daro wax weyn baa isbedela baa ku yimid xagga quraanka sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalka gaariga sadaqaystay Cabdinaasir Suufi oo run ahaantii wax cusub iyo arrin cajiib ah ku soo kordhiyay community-ga يعني أرضي يورن هذا وح مقطع مارت شعيل إقبال إن قرآن كل وسي ترتمو أو سندها صوص على جواري ما شاء الله عرين كلات من الله سبحانه وتعالى سجنا هبركيه وميزان كحسنات كان صدق الله سيله سبحانه وتعالى هودر روحنا كلهم هالعليا عد كستا وكقيب قادتي محوها مسابقة الإمام الشاطبي أما العقب بحسي أما محوها قرب استاكتي سيد فولنتيريس كرجع كله وحوي أيضا كشقية دمان كل قد ومهد علينا aad baan ugu farxsanahay waxa la weyneynay waa kitaabka Ilaahay dhalinyaro yar oo waxa way wadankan ku koray oo ku dhalatay oo aragteen waxa dhibaato taalo in quraanka la jeclaysiiyo oo quraanka ku tartamaan oo meelo tartamo caalamiya ka qayb galaan waa arrin weyn weey bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in magacaygu waa Cabdullaahi Bashiir Cabdi
markii koobaad mahadka ilaahay iska leh. It would not be possible without Allah subhanahu wa ta'ala and his will. markii labaadna waxaan u mahad celinayaa macalinkeeda Sheikh Abdulnasir Farah, his sacrifice and his time that he put into me, and this would not be possible without him. markii saddexaad waxaan u mahad celinayaa taraska Imam al-Shatibi. They're a big inspiration and the biggest reason that I memorized the Quran. One of the reasons that I memorized the Quran, and it's a big encouragement for all students that want to memorize in the future and become hafid. And last but not least, I would like to thank their brother Abdulnasir Sufi that made this possible, and he also brought a new inspiration and encouragement for people that also want to memorize the Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahi raxmaan raxiim. waxaan rabaa walaalayaal ugu dambeyn runtii inaan u ducayno walaal Cabdinaasir Suufi iyo gruubkiisa oo runtii arrintan ka qayb qaatay. intaana ducada gelin ka hor waxaan rabaa inaan ka hormariyo hal xadiis oo aad u muhiim ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa su'aal la weydiiyey, nin saxaabiyaa weydiiyey. wuxuu ku yidhi rasuulkii ilaahayow, ilaahay dadkiisa yuu ugu jecel yahay? markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay wuxuu ugu jecel yahay dadkiisa qofka ummadda ugu nafciga badan. yani maanta baabuurkan wuxuu soo siyaadiyey nafci aad u weyn, runtuu ajar aad u weyn. weliba nebigu wuxuu sii sharaxay, wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ilaahayna acmaasha wuxuu ugu jecel yahay camal la sameeyo farax aad mu'miniinta qalbigooda gelisid. marka baabuurtan runtii ahad qur-aanka iyo ardayda iyo volunteeriska kulli wuxuu geliyey farax. marka waxaan rajaynaynaa dhammaan runtii musaabaqadan shaatibiya la yidhaahdo dhowr goorna waa sheegnay, source income ay meel ka hesho ma laha. in cid loo baryana runtii in badan baa la iska ilaaliyey, maxaa yeelay mar haddii qur-aanka ilaahay la weyneynayo in baryo iyo tuugis uu galo waa lagala xishooday. marka walaalkaas siduu hadda sameeyey oo kale oo isaga uu ku dhiiraday in walaalaha kale ay ku dhiiranayaan inay qur-aanka weyneeyaan si ay u gaadhaan iyaguna weyneynta ilaahay subxaana wa tacaala. ta labaad inaan ogaano walaalayaal, nabigeenu calays noo sheegay qofka muslimka sadaqada uu bixiyo xoolihiisa waxba kama dhinto. haddana waa laga yaaba inaan ku fikirno 40,000 oo dollar oo kaash see loo bixiyey, laakiin nebigu wuxuu inoo sheegay meeshii laga soo saaray ilaahaba buuxinaya ka badan buu helaya in lagu dhiirado. ugu dambeynna waxaan ilaah ugu baryaynaa subxaana wa tacaala Cabdinaasir Suufi iyo gruubkiisa si gaara in ilaahay xoolaha ay bixiyeen meel ka wanaagsan oo ka barka badan uu ka siiyo. waxaan ilaah uga baryaynaa in aakhiro iyo adduunba uu ku anfaco. waxaan ilaah uga baryaynaa isaga iyo cimrigiisa iyo camalkiisa iyo caruurtiisa iyo xoolihiisa iyo caafimaadkiisa ilahay in ugu barakeeyo, isaga iyo intii kale walaalaha ka qayb qaadatay insha allahu tacaala. inta khayrkan ka qayb qaadatay oo social media ku jiro oo macallimiintu ku jiraan, inta niyeysatay iyo inta qalbiga ka jecel, kulligood waxaan jecelnahay ilaahay raxmadiisa waa waasice inuu iyagana wax walba jecel yihiin uu siiyo, wax walbana dhibaataan uu ka hayo. wasala allahuma calaa maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها
أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حسبك.